Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah xilli ay jabahadu u soo socdaan caasimadda waddanka ee Addis Ababa. Dagaalkan oo socday muddo sanada ayay dowladdu ugu baaqday dadka rayidka inay ishubeeyaan oo ay difaacaan Addis Ababa kadib markii ciidamada Tigreegu ay qabsadeen laba magaalo oo ku dhow caasimadda waddanka ee Addis Ababa. qowmiyadda Tigreega oo dagaal adag kula jirta dowladda ayaa la sheegaya inay ku biireen jabhado kale kuwaasoo ku sii siqaya caasimadda waddanka Addis Ababa. saraakiisha ajnabiga ee la socday dagaalka ayaa sheegaya inay jiraan calaamado muujinaya inay dhowr cutub oo ka tirsan ciidanka Ethiopia ay burbureen amaba se ay dib u gurteen. xaaladda degdega ayaana ka turjumaysa mawjadaha sida degdega isu bedelaya ee dagaalka baan oo khatar ku ah inuu kala gooyo Ethiopia oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradan madow ee Afrika. waxayna sidoo kale calaamad kale oo murugo leh ku noqotay abaalmarintii haystay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo ku guuleystay biladda nabadda adduunka ee Nobel Peace Prize iyadoo sumcadiisuna caalamiga uu dhulka la jaray dagaal sababay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha, xasuuq iyo macluul. hal sano ka hor saacadii hore ee November 4 sanadii 2020 Mr. Abiy Ahmed waxa uu olole military ka bilaabay waqooyiga gobolka Tigray isagoo rajeynayay inuu ka adkaado Tigray People's Liberation Front loona soo gaabiyo TPLF oo ahaa cadowgiisa siyaasadeed ee ugu dhibka weyn. Mr. Abiy waxa si degdeg ah u galay howlgal military hase yeeshee ciidamada Ethiopia ayaa jab weyn la kulmay bishii June markii lagu qasbay inay ka baxaan gobolka Tigreega, waxaana maxaabiis ahaan loo qabtay dhowr kun oo askartooda ka mid ah. dagaalkuna waxa uu si xawli ah waqtigan uga socdaa dhinaca dhanka Mr. Abiy Ahmed. maalmihii la soo dhaafay fallaagada Tigreega waxay qabsadeen magaalooyinka Disay iyo Kombolcha oo 160 mayl u jira waqooyi bari caasimadda. sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in ciidamada Tigreega la arkay iyagoo u socda koonfurta Kombolcha talaadadii toddobaadkan. marka la eego haddaba xaaladaha degdega ee Mr. Abiy waxa uu awood u helayaa inuu xirxiro dadka dhaleeceeya kuna soo rogo bando oo xadido warbaahinta. wasiirka cadaaladda Gideon Timotheus ayaa shir jaraa'id ku sheegay xaalad degdega ayaa socon doonta baa la yidhi 6 bilood sida dowladda ay sheegtay. bishii la soo dhaafay militariga Ethiopia waxay bilaabeen duulaan ka dhan ah ciidamada Tigreega kuwaas oo isku fidiyey duqeymo ka dhanka ah caasimadda go'doonsan ee gobolka ee Maqale. maalmihii la soo dhaafayna Mr. Abiy ayaa khasaarihiisa ku eedeeyay ajaanib aan la aqoonsan oo uu sheegay inay ka barbar dagaalamayaan qowmiyadda Tigreega. magaalada Addis Ababa ciidamada ammaanka ayaa bilaabay abaabul cusub oo ay ku sameynayaan qowmiyadaha Tigreega taasoo kicisay baa la yidhi cabsida laga qabo argoosi ku salaysan qowmiyadeed oo ka dhaca caasimadda markii fallaagadu ay soo dhawaatay. dadaaladii caalamiga ahaa ee lagu doonayay in dhinacyada lagu soo dhaweeyo miiska wadaxaajoodka ayaa waxba ka soo bixin oo ku soo dhammaaday halbacaad lagu lisay. markii Abiy hore u sii waday dhaqdhaqaaqyo ciidan inkastoo ay soo tarayaan cadeymaha muujinaya in ciidamadiisu ay la kulmeen dhibaato adag. qowmiyadda Tigreega ayaa dhankooda sheegay inay u dagaalamayaan sidii ay u jabin lahaayeen go'doominta ay lagu ciijiyay deegaankooda dadkoodana ay gaajo u dhimanayaan. hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa sidoo kale ku eedeeyay dagaalyahanada Tigreega xadgudubyo ay ka mid yihiin dilka qaxoontiga Eritrea inkastoo aysan la mid ahayn ciidamada Ethiopia. dowladda Ethiopia ayaa ku eedeysay dagaalyahanada Tigreega inay dhalinyaro ka badan 100,000 ku dileen Kombolcha maalmihii la soo dhaafay laakiin ma aysan bixin wax cadeymo ah. waxay ku soo qulqulayeen koonfurta gobolka Amxaarada tan iyo bishii July dagaal baan oo ka dhacay inta badan meel aan la arki karin taas oo ka dhalatay maqnaanshaha internetka iyo xadidaadda warbaahinta caalamiga. horumarkan ayaa yimid kadib markii laga qabsaday Disay iyo Kombolcha oo ah magaalooyin istiraatiiji ah oo ku taala waddo weyn oo isku xirta waqooyiga ilaa koonfurta taasoo lafdhabar u noqotay dagaal go'aamin kara mustaqbalka Ethiopia. si kastaba ha ahaatee xukunka Ethiopia ayaa ruxmaya waxaana soo ifbaxday tamardarada dowladdu markii Ra'iisul Wasaaruhu dadka shacabka ku booriyay inay hubka qaataan difaacaan caasimadda Addis Ababa kana barbar dagaalamaan ciidamada waddanka. waxay dadka u daroosa siyaasadda ay sheegayaan in haday u suurto gasho inay TPLF qabsato caasimadda waddanka ee Addis Ababa in waddanka Ethiopia uu kala go'i doono waslad isla markaana uu dhici doono dagaal dhaba dheeraada oo u dhaxeeya qowmiyadaha waddanka Ethiopia.